shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob oo ay ugu horeyso qodob ka soo baxay madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya qodobkaas oo yani sheegay gobolka Hiiraan loo dhisayo macnaha consulkii hore ay Besha u diiday madaxweynuhu uu sheegay in beelaha reer Hiiraan ay isku raaceen in muxuu ahay consulkaas mar saddexaad waxaan ku celinayaa war saxaafeed ka soo yeeray madaxtooyada arrinkaas wuxuu ku yahay Besha arrin aad iyo aad ay u xun tahay arrin aan muxuu ahay laga fiirsan arrin Besha laga muxuu ahay laga been abuuray annagu cid aan la shirna ma jirto reer Hiiraan wax ka dhaxay colaad ma jirto laakiin cid aan inta wada fiirsanay consul isla ogolaanay maamul sameeyna wada ogolaanay midna ma jirto waan cadeyna si cad ayaan cadeynayna Besha kama qayb gali doonto maamul sameeyn gobolka Hiiraan mana ka qayb gali doonto ilaa ay xuquuqda ka soo aadan warkaas cadeynayna